warkalamaanay danaheeda markay garato iyo dawga loo marayo dood markay wadaagto heshiis gelisa diiwaanka oo daawo dhigataa ummadi dawlad noqota war axmedow dhibanihi dhibanuhu dhibayna dhibanayaasha isdhibe oo wada dhibanuhu shalay dhibayo suu u dhibayo waa dhibane dhibayo ciddii dhibto dhibku dhibka dhaafsada warhankoolow sideen wax idiin dhahnaa haddaan hadal idiin dhacayn maxaa dhimanoo sugtaa dharbaaha miyaad rabtaan ya dheega jari waranna waxaa kaloon dhihi lahaa soomaalidu dharaariyo mudday soo dhutinayso lugta dhaawac kaga yaal ay la dhiirinaysoy dhaqaaq joogsanaysee war hooy yaan dhib loo celin dhaqaaq joog igayga dhallaanku ilaayaabena waa maqli jira war cabdullah anna waxaan maqli jiray dharka kan caddayste jidka dhinac maraaye dhibka diidaya iyo kan dhammaade dhagaxaysa saare dhoobada qasa hadday wada dhasheen war dhooba qasid isxilqaana u dambeeyey mawaalanta adiga isxilqaan muddo xuleedkeedii waa dhammaad boowe isxilqaan waa maqli jiraye soo guure ma lahayn war isxilqaan shalee koytay ka hor bamay ka shaqeey jirnay iska walangobsaye dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dheregne warmadeeyo allah u naxariistay abwaan garqaniyo la oran jiray ayaa markii kacaankii iskaa wax u qabsa dalka ku soo rogay wuxuu yidhi ardawladeennu ma waalan tahay tan yaabka waadan iyaaba taxawaan iskaa wax u qabsanayna ma hadday soo baraarugtay marka dadkaan weligooda isxilqaamayeen maxay guuraya nabad iyo nolol ugu beer abuuranayaan aryahan goolow dadku inay wax qabsadaan oo dalkooda dhistaan ma ogolide waxaa la yidhi anna dhagaxa isma weeye kii ka dhuunto dhibka diidow dhaxal ku malihid wareedhahayo golihii xukuumaddaba lama dhisine dhaxalkaad u ordaysaan inuu ma aqaane magaalada xirfad cusubaa ka soo baxdaa la yidhi war shaqa la'aanaana dishay haddaad xirfadayda noo sheeg war ma dadkaan la qoraya booba magaalada aa ku wareernay fursaddaana la wadaagaa ka faa'iidaysanay waraabo sokama saaranka maaraga waa dheegi jari si bibi cusub miyaa la qoraya wareedhahayo waxaan u malaynayaa xabsii laydinku xidhi lahaa inaad u shaqo tagtaane magaalada waxaa ka bilaabataa la yidhi habeenkii dadka in guryaha lagu garaaco la yidhaahdo fura waa la baarayaae sababtoo amniga in la sugaa waa muhiim kadibna waa la baarayaa waana la baaranayaa baa la yidhi war dadka balaayada guryaha u jiifjiifta haddii laga baaro waxay haystaanna laga baarto sow dadaal dheeriya maaha maxaad muranka uga keenaysaa war isan baaskalaga malan guriyay bilaayaha kaoodaw balan aragaana war taas waa culku dhac oo tuuga kuu ciidamisay war horta guryaha ha baarteen oo taleefanada iyo wixii kaloo ay heli karaanba ha ka qaateene gurigii ay qarax ku arkaan say dhahayaan talow war ana lambeesiyo inay taleefon insooda qarax aragay war tuugada ciidanka isku ekaysiinaysa guryaha bese kuma eke waddooyinkiina way ku soo biireen waxaana u dambeeyey inay xataa gaadiidkii joojiyaan oy dhahaan baadhis baa socoto kadibna ay baartaan war bilaash baad ula yaabaysaane tuugadaani waa tuugo tu alif makis baro waxaana ka horraysay tuugo 11 makis baro oo haddii aad xasuusataan waayo ka hor gabdhaha intay ballansadaan oo shukaansadaan taleefannada ka hadi jiray markii iyadoo la abreedgareeyey leh waaye war cabdikuusow tuugo tiif tu alif makis baro miyaad noo keenta haddana war haddaan hadda wax laga qaban tuuga tiiftaa tiif makis baro baa waddada ku soo jira war runtiisu tuuga tiif wadatu waa noon iskaga wadu war nimayow tiiftiiftiinna ma aqaane haddii tuuga inta barqadii laamiga xidhato oo gaadiidkii dadweynaha joojiso ciidan baaraya iska dhigayso ma waan ciidan toosahoo wax ka qabtaahi jirin siday ku arki waayeen war tuugada dadka xaafadaha ku dhibee moobeelada sida iyagoo leh u aruursanayo maxaa wax looga qaban waaye awa taliya ha sheegin iyo booliskiisii war adiga yeeshee ku yidhi war booliskantaisan walanka sheegna ka hor sadiidis nambaranku weertana haaba isinka dhegansido boowa taleefanka markay kaa qaataan saddexda lambar wac bal hadday kuu soo dhicinayaan war warka waad badiseene gabay 5 daqiiqa soconayaan tirinayaa iga dhegaysta lacag yari inama haysee tuugadaa nagu badan war sidii hankoolxaad u dhihi weysay halkaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin war taliyihii gobolka banaadir jenaraal farxaan qaroole miyuusan tuugadan dadka xaax ka siisay ogeyn mase dhiiqadii hadda ka hor looga digay oo uu lugaha la galay uu la kurbaysan yahay boowa jenaraal xijaar waa kii xilligii doorashada habeenkii 2 jeer soo toosi jiraye hadda miyuu iska seexday war taliya
waryahay sheegin maalin dhoweed asaga laftirkiisa tuugada ka cabanayay amay taleefankii ka xadeen horta tuugadu ma tuugo keliya ah mase ciidana ku dhex qarsoon war ciidanka aad ka sugaysaan taleefana xaafadaha yaalla inay ilaaliyaan tuutahoodii baa dadka lagu dhacaaho lagu dilaa har iyo habeen aryaadhaha arrintaanu tuuganimo way gala badan tahay idinkoon ku wareerin majaabeesa meel kaaley kamuulax leeyihiin majaabeesa meel kaaley kamuulax leeyihiin warnimayo anugu waxaan idin odhan lahaa way isku baahahayiin booliskii iyo bulshadu way isku baahahayiin bishaara waliga laha ambaahanta bulshadana abniga ambaahanta aga wargonan maday u dhaantada dheesha ka daadee warada naftaba eelbert iyaarta ku dhaaf war madeeyo waa kaa gardaran yahay xaggee dhaanta iyo dheel loo kala deyi karaa waan laxaawana lamigo la xiro waan u laxaawana waryaa tan oo kale arka war cabdikuusow laxda iyo wankaadu markii hore maxaad laamiga kala soo doontay war wada jannay war ma haysaane ra'iisul wasaare xamse cabdi aar maanta wuxuu la kulmay safiirka midowga Yurub waxayna ka wada hadleen baa la yiri taageerada midowga Yurub Soomaaliya siinayso haddii xamse haduu yimidna waa laba jubbaaraynaa bay dhaheen war qoranow ra'iisul wasaaraha midowga Yurub ma horey u sii yaqiineen aaga war ma halkaas ay ka maraysaa ma cid aan garanaynin baa adduunka joogto war wala weynay hadii ra'iisul wasaaraha adduunka dhami garanayo uu Soomaaliland ictiraaf uga keeno boo hadaanu nahay dawladda Puntland wada hadal aan goobjoog ka ahayn Soomaaliland lama geli karo horta madaxda Soomaalidu midowga Yurub hala macaamilaane afka Faransiiska ma yaqaaniin loo faqanse Allahu akbar lafna xaal laga lafaqa war Faransiis wixii Soomaali uga xidhma Djibouti baa joogta war kalamaanay war ma haysiine madaxweynuhu Faransiis kula hadli maayo Turkiye horta ma ka soo laabtay mas'uuli waa ku maqan yahay war waxaan la yaabay anigu mucaarad food la bilaabay ayadoona hawle bilaabanin war waxa hadda socda mucaarad ma ahane mucaarad waa aragti iyo mabaadi wuxuuna dhaliilaa maamulka wixii ka qaldama laakiin hadda waxa socda waa shakhsi diidan warwarka waad iga dhax gasheene ilaa xalay waxaan maqmaqlahay madaxweynaha wasiir baa soo dhaweeyay laakiin markaan taariikhda aan dib u fiiriyay madaxweynihii ka horeeyay agaasimaaba soo dhaweeyay war Soomaalidan waxba garane kii hore iyo kii dambaba magacooday ka turjumayaan in la xurmeeyana ummaday xurmad u tahay hadii lagu xadgudbana ummadda dhan baa lagu xadgudbay marka qof in lagu xadgudbay ku farxaya miyaa fiyow wargeeda Soomaali la yira in badan maskaxda nooc kale u shaqeysaaho qaara geerida ku farxa war kalamaanay war ma haysaane dawladii Puntland baarlamankeedii war cusub buu keenay war gudoomiyay baa xilka laga qaaday war mudakaraasi miyay sameeyeen war ma farin biyay bilaabeen boo madaxweyne dani waxa loo lama tagi kare markii uu horeysay waxay celiyeen wareegta xafiiskiisa ka soo baxday ma ku adkeeyeen war nin wareegtadiisii la celiyay miyaa farin bi u dhibman yahay war dimuqraadiyadda Puntland garan maysaaniine gudoomiyihii maxkamadda sare madaxweynuhu magacaabay bay kalsoonidii u diideen baarlamaanka wararta waa idinku wareeray maamul goboleedku maxkamad sare ma yeelan karaa war hadda dawladda Puntland dastuur bay leedahay waayahay ka federaalka ma waafaqsan yahay war 100 jeer baan ku sheegnay Puntland waa hooyadii federaalka war ma haysiina Kuuba iyo Kenya kubad cad miyay ciyaareen Ruushia iyo Ukraine miyay la kala safteen kollayba Kuuba cidii la dirirta kuuriyada waqooyi baa Allah ka dhiga waa soo dhaweynayna war hangaalo cuqdad badanida masalan sabankii baad wali xasuusataa ya hadii abkawgii ku dhintay intuu ku ilaaba war Kuuba markay faraahna la soo gashay aan bayloodka ka qabanay Orlando Carlos la dhihi jiray ma xasuusataan miya adinku war hana la waalanine dawladaha Kenya iyo Kuuba waxay ka wada hadleen dhaqaatiirtii Kuubanka ahaa ee al-shabaab sanada ka hor ka afduubteen kaalay arrintaas soo faragelin ma aha Kenya ma iyada shabaab iskale markay Kuuba kala hadlayso war hangaalo midda ma bakhaylnimo ku geenayso shabaab Kenya ka galay wax la daba orda ma ahane aryaadaha war ma haysiin gobolka Gado kamida gobolada abaarta badan ka jirto Cabdiraxmaan Cabdishakuur mug lamaado ku naqday berigana baar dheerow jooga la yiri ayaan dhaweedna waa kii doolow tagay dad masaakiin oo la kulmana gurmad degdega idin soo gaarahay yiri warnimayo anigu horta waxaan la yaabanahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ergigii ka horeeyay xaguubuu tagi jiray war ma haysaana wala weynay hadaad qarandumis maqli jirteen kii ugu yaabka badnaaban maanta idin haya boo ma Soomaaliya ku biirteen wartanaabatiini ka waa lacagta Soomaaliland waxay qarandumis u aqoonsatay dadkii sanadkan xajka aaday lacagtii xajka ku aadeen abaaraha maxay ugu bixi waayeen miyay ku aadeeyeen war Soomaalidu waligeedba wax walba catiifadeeda ku salayn jirtay qarannimadana hal walba kooxdii talada haysa isu qaadatay inay ayada tahay marka hadda sidii loo waday miya cibaadadii qaran
qarandumis la soo geliyey war haddiiba qof masaajid ku jira la yidhi murtadaa tahay somalilan dadkii ay dhaheen xajka lama aadi karo hadday meelo kale ka dhoofeen xaggay qarandumisku huraayaan war dee arrimaha xajka soomaaliya siyaasadaysay war madaxda soomaalida meel walba ha joogtee nin walba qumanihiisa aqoorta ugu jiro bow xujayda somalilan garawa inay ka dhoofaan xaq bay u leeyihiin waa markay qarandumiska ku noqdeenba war gaboosow xujaydu markay soo laabtaan xaaji ducadiisi iyo habaarkiisu waa maqbuule ha isku xidhina adiga laftirkaaga qorano waxaan lagu dirsan ka shaqaynaya aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi how in dulmiilo wax loo diray dadweynuhu ka dayriyeen in dulmiilo wax loo diray dadweynuhu ka dayriyeen war cabdillow shirdhan waa innagii ahayne anna qaybtii kale iga dhegayso walweliyo qofku walbahaarahayow waaga cusub wax badan oo wanaag loo sidaa oo wanaag loo sida waaga cusub wax badan oo wanaag loo sidaa